ururada haweenka saxaafadda dadka Soomaaliyeed ee nagala socda dunida geesaheeda kala gedisan dhammaantiin waa salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. marka koowaad waxaa sharaf noo ah inaan maanta isugu nimaadno halkan oo aan isugu nimaadno shirka ciwaankiisu yahay shirweynaha wadatashiga qaran ee hanaanka dib u heshiisiinta oo ah shir muhiim ah. waxaan marka hore rabaa inaan u mahadnaqo howlwadeennada iyo shaqaalaha wasaaradda arrimaha gudaha federaalka dib u heshiisiinta oo hawshaan si weyn u soo agaasintay hawshaana gacanta ku hayn doonta ayaamaha soo socda xagga farsamada. waxaan rabaa dhowr qodob inaan dul istaago. marka koowaad waxaan rabaa inaan wax ka dhaho shirkaani muxuu yahay, muxuu shirkaani ku saabsan yahay, maxaa looga gol leeyahay, maxaa loo qabtay, maxaa la rabaa inay ka soo baxaan. miiskaani maaha miis aynu hadda ku heshiinayno oo dad lagu garqaadayo maaha. shirkaani wuxuu ku saabsan yahay in la helo waddadii loo mari lahaa dib u heshiisiinta Soomaaliya, wadiiqadii loo mari lahaa. marka hore waxaan rabaa inaan hoos ka xariiqo shirkaani maaha kii ugu horreeyey. 10 sano ka hor waxaa la qabtay shir aad u weyn oo dowladdii ra-iisul wasaare cali maxamed geedi iyo madaxweyne cabdilaahi salaahu naxariiste xilligeedii ahayd oo waagaa dad badan la isugu keenay magaaladan Muqdisho. waxaa ilaahay ka soo baxay waxaa ka mid ahaa kulba weyn inuu sii socdo wada hadalku iyo dib u heshiisiinta la xoojiyo. 10 sano ka bacdi haddana waxaa mar kale si xoog looga hadlayaa mowduucan. waxaan rabnaa shirkan in lagu qeexo muxuu yahay khilaafka Soomaalidu, muxuu salka ku hayaa, in la dul istaago, la faguro, hoosta laga xariiqo maxaynu isku haynaa, maxaa dadkan kala geeyey, maxaan u soo kaban walaanahay, ma siyaasad baan isku haynaa, ma reeraan isku haynaa, ma hanti baan isku haynaa, ma qab baan isku haynaa, ma is haynaa keliya, ma waxaasoo dhan la isku kabayba. waxaan rabaa inay meesha ka soo baxdo oo la fahmo bahasha khilaafka Soomaalida oo dhan hoosta in laga xariiqo. heerarka khilaafku maxay yihiin? ma heer bulsho oo hoosa, ma mid degma, ma mid gobolba, ma mid qaranba. waxaan rabaa oo kale inay ka soo baxo haddana in mudnaani ay ka soo baxdo xaggee aanayna sugi karin oo ay tahay inaynu horay aynu ka wajahno khilaafyadee degdeg u baahan in wax loo degdelis u baahan. waxaan rabaa inay ka soo baxdo tala nooca ku saabsan oo ah wadiiqadii loo mari lahaa dib u heshiisiinta. waxaan rabnaa kale inay ka soo baxdo yaa wadaya, yaa ehel u ah shirkaani. marka waa shir wada tashi oo horlaac u ah dib u heshiisiinta Soomaalida oo socon doonta. maxaan jecelahay inuusan ahaan shirkaani, inuusan noqon shirkaani maxaan jecelahay? waxaan jecelahay inuusan noqon shir kale oo laysu yimi oo lagu wada hadlay oo lagu kala tegey oo aan waxba ka soo bixin oo haddana 10 sano ka bacdi ama dhowr sano ka bacdi la yidhahdo haddana kii City Palace ma xasuustaan. waxaa ka soo baxaa inay wax dhalaan baa loo baahan yahay. in hoosta laga xariiqo oo ay wax dhalaan oo horey looga gudbo ayaa loo baahan. waxa ka soo baxa yaa ka soo qaybgalay shirkaan jooga maanta waa loo dhan yahay. Soomaalidu deegaamada ay ka kala tirsan tahay oo dhan waa joogaan, maamul goboleedyadii waa joogaan, aqoon-yahankii waa joogaan, siyaasiyiintii waa joogaan, culimadii waa joogtaa, dhaqankii waa joogaan, khuburo badan oo mawduucan soo dirayso dhinacyo badan ka eegi doontaa waa joogaan. in laga fara buuxsadaa loo baahan yahay. waxa laga eegi doonaa shirka dhinacyo kala gedisan, waraaqo badan baa laga soo jeedin doonaa, dhinaca dhaqanka laga eegi doonaa, dhinaca diinta laga eegi doonaa, waxaa la eegi doonaa waayo aragnimo iyo xog baa la isku dhaafsan doonaa. heshiisyadii Soomaalidu gashay oo biyaha celiyey oo ilaa hadda shaqeeyey ayaa la isdul istaagi doonaa. sababtay u shaqeeyaan baa laynala wadaagi doonaa. sababaha kuwa badan oo la qabto la isku daya aysan u shaqayn baa tusaalayaal laga bixin doonaa iyadana oo khibrad badan meesha loo joogo ay ka bixin doontaa. maxaa loo qabtay shirka sidiisaba?
waxaan qabaa waa waqti dheer xilliga iska daba wareega Soomaalidu dadka waxay ku sheegaan 40 sano 30 sano inta Soomaalidu ay iska daba ka wareegaysay ay hoos u socotay waa waqti aad u dheer waxaan miiska saaran marka maanta Soomaalinimada miiska saaran jiritaanka miiska saaran inaan qaran noqono iyo inaynu dunno ayaa miiska saaran ma aha su'aal la dhayalsan karo marka haddaynu sidaan ku soo socono aynu ku soo soconay muddada dheer waxaa iman doonta maalin taladu xataa faraheena ay ka baxdo ama dadkii ehelka u ahaaba ay daaraan oo ay faraha ka baxaan ama waxaynu higsanaynaba la ilaawo hadda Soomaali baynu ka hadlaynaa Soomaaliya laga hadlaa dadka Soomaaliya wax ku oolaa ama arki jiray ama dadka wax uga dhigan waaba yar yihiinba dad badan oo hadda inta soo kordhaysa oo dhaqanka waxay leeyihiin muxuu yahay Soomaalinimada iyo waxa sheegaysaa oo naga maqan maba aanan arag jiilashaas hadda soo kacay oo talada haya oo jooga waxay noqon doontaa in lala qabsado nooca hadda aynu ku noolahay iyada dawladnimada la moodo iyada lagu noolaado in wax maqan yihiinba aan la tabin marka haddaan dhaqso loo qaban meel fog bay tegi kartaa hadhow marka maanta waxaa miiska saaran mustaqbalkeena ay hayni shalay iyo maanta iyo berri bay tahay inaan kala dooranno shalay baan ku furuuray xiraana iyo wixiina soo kala gaaray iyo wixii halkaa ina dhigay mise berri baynu u jeedsanaa waxaan qabaa anigu marka in loo baahan yahay su'aalaha in si dhaba hoosta looga xariiqo maskaxda la tuujiyo talo wax ku oole ay soo baxdo dabeedna loo baahan yahay in si dhaba loo wajaho waxa meesha ka soo baxa waxa ka soo baxa hadhowna iyadana loo baahan yahay in loo bedelo qorshe hawleed lagu hawlgalo cid kasta oo ku hawlan arrinta dib u heshiisiintuna markaa ay noqoto meel ay reference ka qaadato barnaamijyada iyo xogga taladeeda ay u duudo dabeedna laga hawlgalo hawshayna hortaallaa maanta taa weeye waa inaynu xog ururino tala soo saaro doodno miiska wax dhigno sidaan uga bixi lahayna aynu tala ka bixino taasaa maanta aynu hortaalla hawl fududna ma aha waxaan rajaynayaa marka maalmaha soo socda in si wanaagsan arrintaa looga fara buuxsado aan waxba lala harin suugaam iyo dad badan inay baraarujiyo oo dhinacyo badan ka eegaa waa inay ku dhex jiraan dhinacyo badan baa arrinta ka eegi doonaa marka shirka waxaan u rajaynayaa guul iyo dadaal maanta waxay noqon doontaa in hadallo kala gedisan iyo khudbooyin kala gedisan oo dhinacyo badan oo kala taabanaya ay martidu meesha iyo madaxdu ay ka tiraahdo iyo dardaarana shaqada dhabtaana waxaan geli doonaa haddii alla idmo maalmaha soo socda wixii loo gaaro berrito shirku wuxuu soo xirmi doonaa haddii alla idmo sabtida intaasaan rabay inaan idinla wadaago aad iyo aad baad noo mahadsantihiin dhammaantiina soo dhawaada